هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني رحلتي مع القرآن. ما أنتنا وحواي أنيقو هذن ولا شيء سلمى أيا حكا هذا دونا قرآنك وأنا كشيكيسن دونا إن شاء الله تعالى. سودا وسلمى ناصر. سلمى waxaa nooga warantaa fadaaisha qur'aanka iyo waajibka naga saaran qur'aanka. haddii aan ka hadlo qur'aanka kariimka runtii waa kalaamullaahi alcadiim, marka erey yar laguma soo koobi karo, laakiin waxaan isku dayaynaa si yaro kooban inaan usoo sheegno insha allah, anagoo ku bilaabayno waajibka naga saaran qur'aanka. marka waajibka naga saaran qur'aanka run ahaantii waxaa loo qaybin karaa 4 qodob. tan koowaad waxa waaye waxaan waajib nagu ah kulligaan inaan qur'aanka akhrino, oo waxaa ilaahay subxaana watacaala qur'aankiisa wuxuu ku dhahay aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih. marka qur'aanka markaa akhrisid waxaa la rabaa inaad si yaroo degan u akhrisid, oo mataqaanaa degan, tajwiid leh, makaan munaasib ah inaad dooratid, si haratu u khushuucdid aayadahana aad ku tadabburtid. shayga labaad waxa waaye ama qodobka labaad inaad qur'aanka fahantid, isku dayid inaad fahantid. ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. miyaysan ku tadabburaynin ama miyaysan fahmaynin qur'aanka mise qulubtooda waxa saaran quful. qur'aanka marka awaamir buu leeyahay, waxyaalo uu kaa reebayo, inta inaad fahantid waaye. waa inaad isweydiisid maxaa waaye waajibka iga saaran, qur'aanka muxuu igu amrayaa, maxaa laga rabaa inaan la imaado. shayga saddexaad waxa waaye inaad qur'aanka ku camal fashid, qur'aanka aad soo bartay inaad ku camal fashid intaad awoodo. nabi sal slam wuxuu dhahay fattaqullaha mastatactum, intaad awoodid. marka shayga afraadna waxa waaye qodobka afraad qur'aankii ood soo akhrisay oo aad soo fahantay oo aad ku camal fashay, hadda waxaa la rabaa inaad sii gudbisid oo dadka mataqaanaad gaarsiisid kalaamka ilaahay aad bartid. nabi maxamed sal slam wuxuu dhahay balliquu cannii walow aaya, iga gaarsiiya dadka walba hal aayad ha ahaatee. waxaan la dhahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama, waxaan igu khayr badan qofkii qur'aanka kariimka barto dadkana sii baro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سنكتب ما يقول كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. hadda haddaan sii galo fadaa'il qur'aan runtii way badan tahay marka waxaa ka mid ah dadka qur-aanka u saaxiibka ah ilaahay subxaanahu watacaala markay qur-aanka akhrinayaan ilahay wuxuu kusoo dejinayaa xasilooni raxmadiisana way dabooshaa malaa'igtana waa hareynaysaa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisana way ka xusan yihiin dadkaaseeto والقرآن الكريم شفيع بكون قرآن يوم القيامة يوم markii lu dhihi doono اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها waxaa lu dhihi doonaa maalinta يوم القيامة akhri qur'aanka booskaadana wuxuu noqon doonaa meesha ugu dambeysa ma aayadda aad ku istaagtid marka tawan dhiirigelin ku siinaysaa inaad qur'aanka xifdisid oo aad ku dadaashid oo yani aad xaafid noqotid sidoo harita qur'aankan يوم القيامة aad shafiicadiisa u heshid shayga kaleeto waxa waaye adduunkan intaad ku nooshahay nuur aa helaysaa baraka baa helaysaa aakhirana waxaa noqonaysaa ama adduunkan intaad ku nooshahay min ahli illaahi wa khaasatih dadka ilaahay gaarku u ah waa hum ahlu lqur'aan kama qaal nabiyuna maxamed sal salam hum ahlu llahi wa khaasatih يعني القرآن من أعظم أسباب جمع الحسنات القرآن الكريم وسبب وجوين وقفك متقانا وكوكس بنكر أجر بدن حرف كستواد آخر ست قرآن كوحد كوه لسه طبعا حسنات مركز سبحان الله قفكي صفحتك لي أخري قرآنك أنت صح حسنات أيو هليا مركو حكمت من فضائل القرآن الكريم قفك وحال الشيء القرآن كحفظيه أما متقانا قرآنك كود ذاله وأفضل يهي أو حافظنا يهي inuu yahay malaa'igta macooda waa maca safarati alkiraam albarara marka waxaa la sheegay aydan in yowm alqiyaama qofka saaxib alqur'aan in loo xiri doono taajul karaama waxa waaye taaj loo xiri doono bas dadka ahlul qur'aanka ah dadka hortooda loogu xiri doonaa waaridkiisana wala karaameyn doonaa boos fiican ayuu yeelanayaa adduun iyo aakhiraba qur'aanka kariimkana قفك إله سبحانه وتعالى درجيز كرب وقاعدة يحصل على علو منزلة شيء خلته وحواي إله سبحانه وتعالى مع ذابه قلبي وليه قرآنك قرآنك نوح يكون قنية دفاع أو قبل بعد كرتيد نارته مركا سبحان الله إله حر رجعنا ونقدر من أهل الله وخاصته آمين نبينا صلى الله عليه وسلم محن بر الدعاء أن كدعاء سنكرنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي صح ما شاء الله سلمى وحاجر قبي أو أخري إمام الشاطبي مركا قبي قسمنا أخري كرتا تأكيد مركا إمامك هو يعني بلوغا معهم مقدمة ذي كتشرتا وانا كهالي القرآن كريم كان مركا وحودة هاي وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهليه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى وحالك وضع هدية في صوبالي هان كنت تشمع انكستو يرى ذكتهاي لكن وحو ليهي وإن كتاب الله أوثق شافع كتابك الله يمد أرجي وقصقا وأغنى غناء واهبا متفضلا وقنا داقد بدن داقد هبين إيا قلد وخير جليس لا يمل حديثه وقنا خير بدن مدل لفرديسو شاكذي سنة لقد داليني وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا
هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى.